ardada dhigata dugsiga sare ee House Secondary School ee ku yaala magaalada Buuhoodle ayaa maanta hoolka shirarka iyo xafladaha ee dugsiga sare House Secondary School ee ku yaala Buuhoodle waxay xaflad sagoontina iyo maamuus ugu sameeyeen mid ka mid ah macallimiinta 12 sano wax soo barayay ardadan ayaana dhameeyay dugsiga sare ee Form 4 ka ah ee ku yaala ardadan ayaana dhameeyay dugsiga sare ee Form 4 ka ah House Secondary School ee ku yaala Buuhoodle waxaana macallinka lagu magacaabaa macallin Hami Xuseen Faarax Cumar waxaana ardada u sameeyeen xaflad si weyn loo soo agaasimay waxa ka qayb galay maamulka dugsigaasi House Secondary School ee Buuhoodle Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax ardada dhigata dugsigani oo macallinkan ku qiimeeyay inuu yahay macallin karti badan isla markaana aan ilaawi karin saatirkeen hadawre Hami waa haldoorkii hogaankii aqoontiyo hoygii dulqaadka annagana hankeeniyo halkii aan igsaneynay baal wanaag hayeeshee hubaashii hoygii tacliintiyo horseedkii iskuulada iyo hawd ayaad ku sugan tahay halkii ay barbaartiyo bahdii tacliintaba ku bahowday weeyaan hamiyow hankaagiyo keesigaaga nololeed rabbi ku hibeeyo بعد هنبلي وحن شعله هاي إن سود وين السبوتيننا لبضة بس كوجو درنا معلن همي حسام فرح وحقيقة معلن حقيقة أنا جرينين وإحنا وقابل جود هراء لو أرنج رهوي وقابل جود وحلاصي مجرته لكن إمي كانوا وهالك وحنجلي همي قابل جود وحلاصي والله نسنشرين أنا هذا نيته كهايو حقيقة هدينا فيها اللي يسوي بيني ونوه بين لها تيدا وهاي صورة قلت هاي بعد أنت هم حسام فرح ومعلن معلن نوغو قادية حقيقة قلبية إذا كوين دريمة إذا حقيقة مرك هذا الكيس أما مجعيس لده أما مركونا لها اللي درين كيقول مد حقي سوت شرو مركونا لها اللي أنا نيجو درين همي حسين فرح وديري قليه بس حقيقة ديري قليه قورية وحنا قلنا ديري قليه شعالمك سيدو كلام يعني نيك فوجسي وحنا هو يعني نيك فوجسي برديري هاي وحنا هاي أرضي هذين أرضينا وحنا ذكر دردار بياكو وهذا اللي أراد حين نموجنا أنتنا نتحين في قلنا كهر إننا نكتب على ما دين كلنا نودي كشري لما أنتوا دينا نكفر قرينا وطلبات إننا نموجنا ذلك نتحين ككذب وحنا نقولنا ضد ذلك هذا كمل دريي إسلام كانوا كبيرة جماعة الله ذلك سيودينين فيلك قفلوا فيلك دورنا نفط على كسوقه وحاقريه دونك كون فعينا qof walba isku day rajaad leedin silwa deerti Soomaal rajaad leedin rajadaas oo ah inaad dhaafi kartaan dadka maanta reer Yurub dadka kale naga duwan horumarka gaaray dadka kale noloshooda wanaagsan ee u soo dhisay ardada Form 4 hadda ka baxsan farxad weyn bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan xafladan u sameeyno oo aan ugu qabano khaasatan iskuulka ka hawdgalay House Secondary School sida wanaagsan oo ardada Form 4 ka u soo saaray annagana uu noo soo saaray aan jeclaan doonana inuu noo sii wado waa macallinka kaliya oo hagar baxay inuu si wanaagsan dadka wax u baro isagoo wax shuruudo ku xireenin halka laga helo carabtu ninkooda ugu liita bay tiraahdaa hadda cuntada xagga cuntada ku wanaagsan bay tiraahdaa waa ninka ugu qiimaha badan ninkani aan soo saarno haldoorkeena macallin aqoonyahankeena macallimiinta jecel inoo hagar baxay doonay inay si wanaagsan wax nooga dhigaan runtii waa inaan ogaanaa macallin Hami Xuseen Faarax waxaan aad u jeclaanaa macallin inaad naga tagin anagu waan ku jecelnahay iskuulku ku jecelahay macallimiintu ku jecelahay maamuluhu ku jecelahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale isagana taan xusid mudan oo aad ilownay oo ruuxaantii isagana aan dhabaal salaana aan u diraynaa haddii aan maanta isaga aqoon lahayna aan Hami Xuseen Faarax aan baran lahayn macallin Cali Ciid Cabdullaahi meel kasta aad ka soo معلم Hami Xuseen Faarax hooyadii waxa la dhahaa waa Dhool Ibraahim Saban wuxuuna dhashay macalinka 27 November 1993 wuxuuna ku dhashay magaalada Boorama waxaana waxbarashadii ka bilaabay Boorama 2001 waxaana dugsiga hoose dhexe ku qaatay dugsiga Alo Secondary wuxuuna ku qaatay Al-Aqsa Secondary School 2009 ilaa 2012 وحكر لو يكون سجال كلا ويكون قوي تبان كي دكتور برافت كوين وابري لو يكون لبي تبان كي بلا بجامعة دعم يونيفرسيت وحنا دمي لو يكون لحية تبان كي فكرت كاديكيشن واحد تعرف تجي سوا ماتس يعني كريستري بيشكر سوا دقري فرحة داردي ده كوني يكون شيء معنا بليان فلان كل معنا في تنوع قريات هاي أرديه وحي كده واسي قفنا قفص كما تشعلان حدوث نسوي تشعلان لأنه تصبح في السنة هذا مع الهمي أنا كمان تشعلان لكن مع الهمي سكان سكايش عليه
tusaale markaan soo qaatay stage kan oo kale anigu hadda iskama jeclaan karo leena hadana ka arag wax garan saayay hadii ugu soo jiito marka macallin sida ardaydu ku dhawaaqeen anagu qofka iskama jeclaan laakiin iska macallimiinta noogu wadaween laakiin kaliya waxa lagu wadaway ardaydu baa isbartay marka macallin waxaan filaynaa hambaliyo dhamaantiin hambaliyo galaaskiga fanfoorka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كسرت تقفل واحد سكوت ذا أديكوا دكسية مثلية بالشدة مثلية شخصيات هذه إن هذا كانوا قد حب المهمة إن هذا النظام ماشى تشتوي حاليا مكان مغنى ومكان مغنى قناعاتي وحافي عن إن قفك بين هذا مكان ماشى تشتوي مكان مغنى هذا مكان مغنى وحان رجيني يمكن شرف هذا كم مغطى وحاتين هالدور كسكولك inaad ka sii wadaan oo jaamacadana sidaas la yiraahdo muuqato farxad weyn bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan xafladan u sameeyno oo aan ugu qabano khaasatan iskuulka ka hawdgalay house secondary school sida wanaagsan oo ardayda fanfoorka u soo saaray annagana uu noo soo saaray aan jeclaan doonana inuu noo sii wado waa macalinka kaliya oo hagar baxay inuu si wanaagsan dadka wax u baro isagoo wax shuruudo ku xiraynin waxaan soo qaadnay ardayda fanfoorka macalinka waxaan war macalinka sida kuma inta waxba naga noqon maysay مو سمينا معلك قبل قبل يحمو أبا بالله وحمو أبا بالله فرق هذا قبل ما الله يسلف قرته يو قنا وحنا الله الله يا محي ما بلاها تسكت يدي قنا 10 قريت إن مدة اللي جت شو قصدك بقص صدحية اللي حين عشاء كهر أو قصة من هالصنة ما عملوه وحن شو جيب ورمه أب يتسيطون نجمع دحين إن ولا صار لي كده حوري وحنا بهنا ما عندك مستريجة أنا وكاد بقول تاسي فهمتي أنا فرحسن إن تاس واحد سامي من وجهتي مركان يبدأ قول كان فهمتي هذا قول كي تقول لا ما أنت واحد كبر تقول كان ما مرتين أو تاريخ مركز سياسة قرصة مو ده كل يجي المعمولة وترسي التاريخ وتلمان يهجد ووردي هن يهملا إن معمولة فرنت هذا واحد كده حلي أو يصادرتي أنا كده حكرت مكاسي واحد تريهم يو qaabkii wax lagu soo baray wax ugu baranaa ardayda laba waxaan ka dhaxlo kala aan ka fahmay anikaagaasi een hamiyow imika keenin ab iyo abtirsiin iyo odayaal magacaaga oo labaana ma aqoon ma garanin een saxaad hamiyow qaabkii markaasi lagu soo tababaray aadna waxaan ka rabaa maxay in ardaygu tababartid taas runtii maanta waa la arkaa een mudane maamule dugsiga hawd waa halbeeg markaasi hogaamiyaasha qaranka markaasi aw noqon doona insha Allah waxaana soo saaray jeerku tabaca Sheekh Muxtaar maamule sago waxaan ku leeyahay runtii maamule 360 ka hor markaa raadinaysay boosiska maanta aan dhigo oo ah maadada chemistry runtii maalinkan soo galay day waxa digaan seedraankaaga ma qiyaasta karo mooyeen garamay bas laakiin saada wada aragtaa mar dharkii insha Allah hadii la raado waxaan u heeganahay hadda waxaan la yaabay erey ayaga tiri Farduus marka dadisay Farduus ku gaari ana fi qarabay waxay noo balan insha Allah in amar la soo noqon doono aan soo noqon doono maxay form 4 ka soo noqon doono kooy bixiya ma had celinayna macalinka iyaga qaaliga ah macallin همي حسين فارح عمر ورنتي أنا ما أنت هلي كريم كلمة عن كعبره وحين كشيك الهاي وناقة وهم هاد علينا إنها وأنا نوقي ميسانية وحنوقي ميسانية هاي تير دحات كهود إنوي هاي وحن لواد هم هاد علينا إياه ardayda fanfoorka hawd secondary sanad dugsiyeedka 2017 oo xafladan maamuuska iyo sagootinta ah u qabtay macallinkooda qaaliga macallin Hami Xuseen Faarax Umar waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa معلن همي ويدن مال قشر إن شاء الله وحن رجينا يا وحي ويدن براي إن مدهو داينو كو أركي دونو نتيجة مركاينو صوب حلو تا معنى يدونا معها
in ayaamaha imtixaanka iyo sanad dugsiyeedkiisa aynu hami xusuusanahay laakiin waa shakhsiyad aynaan ilaawi doonin idina aan idiin rajaynayo in daakiradiina iyo xusuustiina insha allahu tacaala in badan uu ku jiri doono xidhiidhkiinuna uu noqon doono wixii hadda ka dambeeya sidii markii hore ee aad fanfoorka ahaydeen aad ahaydeen inaad macallinka xidhiidhisaan inaad macallinka ku xidhnaataan inaad macallinka mar walba ogaataan ugu dambeyntii ardaydan ka qalin jabisay dugsiga sare House Secondary School ayaa halka macallinkooda waxay ku maamuseen shahaado sharaf abaalmarinaya waliba hadiyada qaaliya oo loogu talagalay dhawaanayay ahayd markii ardayda xaflad si weyn loo soo agaasimay lagu qabtay howlka sharaka iyo xafladaha jaamacadda Bariga Afrika kadib markii dugsiga sare House Secondary School ay dhameeyeen wacad isna ficil lecture oo la kala fiirsay caalamiga Soomaaliya News buu hodlay